warka soo baxay taliska ciidamada BSF ee Puntland ayay ku sheegeen in ay ku dileen xubno ka tirsan ururka Daacashi kadib dagaal ka dhacay buuraleyda gobolka Bari. warkan ka soo baxay taliska ciidamada BSF ee Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ay burburiyeen farisimo kooxda Daacashi ay ku lahaayeen deegaanada uu dagaalku ka dhacay. ciidamada BSF ayaa sidoo kale cadeeyay in khasaare dhankooda ka soo gaaray dagaalka isla markaasna ay sidoo kale ay jiraan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada ay howlgalku ka dhaceen oo iyaga laftoodu khasaare kala duwan soo gaaray. Puntland iyo Daacashi ayaa dagaal kala duwan waxa ay ku dhexmareen buuraleyda gobolka Bari waxaana mararka qaar dagaaladaasi ka dhashay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaara dadka rayidka ah ee deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen ku sugan. Cabdiqani Axmed SBC Boosaaso. anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir